martiqaada ayaa lagu qabtay hoteelka ambassador ee magaalada Hargeysa taasi oo lagu maamusay laguna marti sooray garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale oo kamid ah garaadada waaweyn ee reer Somaliland iyadoo garaadku maalmaha lagu dambeeyayba uu ku sugnaa caasimadda dalka ee Hargeysa isla markaasina hore loogu soo sameeyay munaasabado iyaguna martiqaadyo ah deegaan kamid ah hadaba deegaanada Somaliland ayaa waxgaradkooda cuqaashooda aqoon-yahanadooda salaadiintooda iyo siyaasiyiintoodu waxay u sameeyeen xarimo sharafeed ballaaran oo la isku arkay munaasabadaasi waxa ka hadlay madax dhaqameed kala duwan oo dhammaantoodba ka waramay munaasabadaha noocana iyo qiimaha ay ku dhex leeyihiin ummadda Somaliland sida markastaba ay laga maarmaan u tahay in loogu sharfo looguna soo dhaweeyo cid kasta oo soo dhaweyn iyo sharafba ka mudan iyagoo tilmaamay sharafta uu ka mudan yahay garaadku salaadiintii halkaasi ka hadashay ayaa haddaba waxa ka mid ahaa Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan sida uga soo qayb gasheen xafladan martiqaadka maanta ee xarimada ah ee loo sameeyay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo ergada uu hogaaminayo Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen oo kamid ahaa salaadiintii iyagu martiqaadka fidiyay dad la isu sheegayo waxoogaa taariikhooda isku noqonaya ma nihiin dad siyaqaanin nahay marka ugu horeysa way soo dhaweynaynaa وبالوينتا جامعة سيادة عيد السودة وين ما يسوي دوا تشوف تي قرات هي السودة ويننا قرات كوحنا ولا السودة وطن كاغي يطل كاغي هذه آدبان نفوت بيني آدبان نفوس بيني وكله وحى يجونا هالكاسي كهالله سلطان عبد الله محمود سلطان أنا قلنا وحنا خطرنا مهدنا قيجة إن أنا مهدنا قينو beesha samaysay harimo sharafeedka maanta anagoo haddana ku sii darsanayna soo dhaweynta garaadka oo inoo soo gabagabayn doona xafladda isaguna inoo soo xiri doona iyo Xasan Faarax Jaamac oo loo yaqaan Xasan Garaj oo isaguna kamid ah siyaasiyiinta dalkani Somaliland gaar ahaan ka soo jeeda gobolka Sool قراتك مع عبيس سامسيات مع حتى أصمد سنة بدل قيمة بدل يعني قيمة كريم وكم هذا قيمة سي إنكستو أوريك عصمد النوري دخلوا دوالي هودي أكدوا دنيا يسوي تنكايس لسان وهي أنا وحنا واحد أمانة وحدة لكن ما أنتم بعض الدجاج لقى gabagabadii waxa xafladaasi ka hadlay garaadka la marti qaaday garaada jaamac garaada Ismaaciil Ducaale oo ka mahad celiyay xafladaasi martiqaadka ama martisoorka mahad Ilaahay baa iska leh waxaan u malaynayaa xafladani waa soo dhaweyn weey soo dhaweyna mahadnaq bay leedahay inaan idin mahadnaqo haddii aad tihiin beelaweynta habar xabuushe oo aad maanta halkan nagu martiqaadeen oo aad nagu soo dhaweyseen oo walaalihiin aad ku soo dhaweyseen Soomaali waa badan tahay beesha harti oo aad isku deegaantiin Somaliland islantiin annaguna aanu salaadiintiin Somaliland aanu nahay aad ba salaadiin iyo beelaweyntiinaba idinku mahadnaqaya inta haddii aan ka gudbo waxaan u maleeyaa waxaynu nahay waynu garanaynaa cidda aynu nahayna waynu garanaynaa waxa inoo yaalla waanu garanaynaa waxaynu u baahannahay deegaankeena iyo dalkeena inaynu ka shaqeyno dadku waa Somaliland weeye deegaankuna waa Somaliland weeye cidda laga doonaya in ay ka shaqeyso oo midnimadeeda iyo calal furnaanteeda iyo isku xilkeeda waxaan u malaynayaa marka xukuumadda laga yimaado waaragii horena uu joogay anna aan ku soo biiray dadkuna waxa weeye meel kale tagi maayaan taariikhduna way isqoraysaa intaasaan waxa weeye kaga baxayaa waan idin ducaynayaa waxaan idinku ducaynayaa ilaahay inuu madar khayr qabayna siiyo baan idinku ducaynayaa
waxaan idinku ducaynayaa ilaahay inuu quluubteena iyo qalbadeenna way isu soo jeedaa ilaahay si adkeeyo waxaan idinku ducaynayaa raxmaad degdega oo maantana roob doon oo laga bannaan baxay oo ilaahay lagu baryay sida ugu fudud oo ugu dhibka yar ilaahay inuu siiyo